xoolaha iskuti xoolaha dawaaga hore kulli reer miyi baan ahaa hadda laakiin saniyo muddo dheer magaaladan joogana reer magaalaha baan u malaynaya wax badan ka garan wax badan ka garan maayo laakiin xoolaha adigu kulli waaga hore waxaan nin miyo ku dhashay miyo ku koray miyo ku barbaaray caana geel iyo caana xoolaad lagu canqariyay hadda laakiin in dhaweyto caana boodhay dilay aqligu inuu xitaa sidoo kale u malaynaya waaya aad iyo aad baa u mahadsantahay aan dib ku celiyo barnaamijka waxa la dhahaa milicsiga afka hooyo dib baa loo celinay aan dib ku xasuusiyo miyiga iyo waagi hadda ma garatay geelu marka uu dharo nirgaha yaryar ma garanaysaa awrka qurbac baa la yiraahdaa ma garanaysaa awrka yar nirigti maxaa la oranayaa iyada niyahow anigu nirig iyo waxa la yiraahdo qaalin wax u dhaxeeya waxaan garanayaa de waa qurbucad bay la tahay qurbacadaas bay noqon waaya aad iyo aad baa waqti midaas oo kale bulshada weydii noogu noqon waxaan idinku noqonayaa war marka la hayno ahaato nirga yar marka uu yar yihiin qurbac baa la dhahaa awrka yar Soomaha nirga yar nirigta leeg af Soomaalihan maxaa la dhahaa waxa la yiraahdaa qurbacad bale qurbacad waaya midaas oo kale bulshada noo weydii insha Allah ta'ala marka uu neefka geelay dhalo oo neef sawira dhalo waan markaa de nooleen ama dhaqdhaqaaq yar leh maxaa la yiraahdaa waayahay aad iyo aad baa u mahadsantahay barnaamijka sidee u aragtaa dhaqan barnaamijku waa fiican yahay aad iyo su'aalahaas in dhaqankii dadka dib loogu soo celiyo dadku dhaqankii ka faa'iideystaan xeedhihii la soo celiyo wixii wax lagu cunayo dhaqanka la soo celiyo waxaan ku leeyahay xoolihii su'aalahoodii iyo say ahaayeen qaabkoodii la soo celiyo waxa way dhaqankeena baaduu soo noqonayo dhaqan reer galbeed baa inoo yimo kaasaan rabnaa inaynu bedelo la badiyo barnaamijkana waa fiican yahay hal la kordhiyo hana la badiyo hana lagu dadaalo insha Allah ku soo dhawo RTV magacaaga ku bilaabay Umar Said Ahmed waa ku dhawaa insha Allah Umar su'aal baan ku weydiinayna af Soomaali ama dhaqan bay noqonaysaa taan ku weydiinteedo kale bulshada inaa weydiisid baa rabnaa diyaar baa u tahay sax xoolaha su'aal iga weydii kuwa ka weydii ariga iga weydii ariga haye wanka sumalka ah oo ariga bahalka dhexda lagaga xidho maxaa la dhahaa maxaan yani saam wuxuu saab ha ya waxaan xamil dasiga afkooyo xagga kan waxa garabkayga midig jooga qaar kamida odayaasha magaalada Ceyrgaab soo dhawaada wadownahay aniga si salxada ma leeyahay ninkan xasan aadan waayahay su'aal af Soomaali odayaasha ka mid ah ganacsatada ka mid tahay waayahay aad iyo aad baa ganacsatada su'aalaha idin weydiinayna waan ka jawaabinaa oo ama dhaqan bay noqonayaan ama af Soomaali bay noqonayaan maxay haytay su'aasha idin weydiinayna waxa weeye xoolaha adiga horta kow waa sida xoolaha imisa raafleeya iyo imisa qoobleeya taas waa taas ma garatay ta kale aan ku raacinayo waxa weeye imisa sidig yeela sidkama imisa sidig yeelin ha bismillahir rahmaanir rahiim horta xooluhu waa shan meesi weey marka hore kow dee laba qoobleeya waa fardaha iyo dabeeraha haye riyaa ku dar riyo waa raafley idu waa raafley haye geeluna de waa cagley weey isagu wuxuu leeyahay shaambad gaar u leeyahay haye yaa kala raafley xooluhu waa shan meesi baan ku laba waxa weeye labada gamaanka fardaha iyo dabeeruhu waa qoobley waa ku gartay idaha iyo riyuhuna waxa weeye waa raafley waa hal mid iyagu isku hal mid geeluna waa barnaamij gaar ah geelu hay mid baa haday geelu weeye cagaf buu leeyahay waa gaar mid baa ku haday okay laba gamaana waa ku haya maxay haytaa idihiyo arigiyo isla socda riyo iyo isla socda waa gartay haye geelina waa ku haya afar baa ku haday تدمر شيء تدمر شيء ما يمت كلام مغن كم مغن واكه اوكي مغن واكه جيلي يا ارجي فرده يا لودي وقبلي انا قبلي لودي من لا هذا لودي من لا هاي وقبلي سدحاس امسا maxay ahayd sidigi sid kama oo sidigi yeela inta mees wax sid kama looda iyo geela wende iyo looda maqaar baa loo dhigaa maqaar baa loo dhigaa laba wiil ma dhigto geelun baa wixii dhaqan waa siid looda maqaar baa looga geelun waa sid kama ونريق بالله لكن ويلي لما سعمود نوت واقرتي محان ست كمين تو waxa kale isma was kamaan idu was arig was kamaan laftiisu oo de waxa weey ani kala intaasuna was sid kanta intaasuna ma sid kanto kala saar Soomaha saddex was sid kamaan maxay kale wariyaha iyo idaha iyo looda waa saddex geela baan wada geela iyo geel ha
sax sistema maxaan sid kamin waxaan iskamin looda ko toddobeeraha isagu kuma jiraan Allah bas looda ma sistema qaar baa lagu maala way hay aad iyo aad baa mahadsan aad baan soo dhawaan fiican weeye oo fiican dhalinyarada oo dhaqanka insha Allah de wixii su'aalo damana diyaar baan u nahay waad nagu yarkadiiseen ku soo dhawo marka koobaad RTV magacaaga oo ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim ku dhawahay magacayga waxa la dhahaa Abbas Xawd Maxamed Abbas su'aal baan rabnaa inaan ku weydiino ama dhaqan bay noqonaysaa ama maxay tahay af Soomaali bay noqonaysaa kelmadda abasax waxa la dhahaa xaj marka awrku abaahinayo loo hayo loo haynayo waa la dhahaa baa la dhahaa miska markaan ka way hay aad iyo aad waa garatay mid saas oo kale bulshada weydii geelu marka qodaxda muddo kale ama gaar maxaa la dhahaa markaas marka geelu qodaxda muddo aad iyo aad baa u mahadsan waa tahay weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkeena milicsiga afka hooyo soo dhow RTV adoo magacaaga ku bilaabay bismillaah waan dhawahay magacaygu waa Luul Cabdillaahi luulay su'aal af Soomaaliya ku weydiinayna oo dhaqan su'aashan ku weydiino teeda ama af Soomaali bay noqonaysaa ama dhaqan tan ku weydiin teeda oo kale bulshada inay iyagana weydiisid baan rabnaa diyaar ma tahay ها كل دقن كحواكا قانا لكن waxaad noo kala sheegtaa afarta meysi inta raafley ah iyo inta qoobley ah رافلي دي وعرقة yaye قبلي دنا حوايه لقطة ضميرها waayo waa kaa bedelaya halkee kula su'aala يا maxaan waxa kaa weydiiyo حاجة شاحة xagga shaaha iyo waayahay shaaha maxay tahay caanaha quriya iyo sokorta caleenta kaliya laga kariyo oo biyuhu ka maqan yihiin maxaa la dhahaa caanaha biyo looga dhigay caleen iyo sokorna waa lagu daray waa la kariyey shaaha maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa deegaanka dhaqanka say isku tihin xoolaha dhaqanka xoolaha dhaqanka waa dhaqana aad iyo aad baan u dhaqana xoolaha dhaqataan waliba geela looda ariga looda ma taqaanaa cida looda af Soomaali ahaan maxaa lagu yiraahdaa ximbo baa lagu dhahaa ximbo ma Soomaali ahaan af Soomaali geela soo olol lama yiraahdo geelu waa olol loodan maxay noqonaysaa loodu baa maawi waa gartay mid kale ku weydiinaya ana waan naqana xabaye wax walba waa taqaanaa Soomaali waxaan ku weydiinayaa geela awrku marka uu rabo awrka inaanu halihiisa ka soo dhaxgelin oo hinaasaha waa doobiya markaas uu cuna awrku baacsada inta dhabilisto marka qooqan yahay waliba waayay waa si wanaagsan maxaa la yiraahdaa marka uu awrku hinaasaysan yahay oo geela geela isaga marka soo qooqan yahay awr kale geela ma soo dhaxgalaba isaga ku hinaaso awrta kale waa cunaa dadkii kale awrtu hinaasihiisa maxaa la dhahaa af Soomaalihan waa doobiya markaas uu dhabilisto markaas dusha wuxuu ku yeeshaa dhabi waa gartay halka jeegada dambe madowga ku dhabi ku yeeshaa maxaa la dhahaa madowga waxa la yiraahdaa adigu doobti waxa weeyaan adigu taa jeegada dambe ku yeesho dhabida waa dhabi mata halka uu dhabida halkaas iskala gaara deemaanka doobtaas uu iska tuuraa halka arabkiisa doobta ka gaarsiisa doobtiisa jeegada gaadha nin cilmi badan baa wataa waa tahay daawadayaal intaas ayaynu galabta ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni milicsiga afka hooyo halka aad ka dheehanaysaan waa RTV waxaan ahay ficil burkud dhidi dhammaan su'aalaha ay bulshadu idin soo weydiisay waxaad kaga soo jawaabi kartaan commentiga idinkoo sii share garaynaya waa ficil oo idin leh adoo dheeraran intuu dhaqankaaga kugu duldhumi lahaa inaad dhugataa ka dheef wacan